dulmiga kale waa dulmiga isku dirka oo labaad. dulmiga isku dirka inta badan waxaa fuliya dumarkaa fuliya inta badan, weliba markay dumarku weynaadaan inta badan oo hooyoyo noqdaan. dad badan oo hooyoyina aada u khiyaaraa jira, laakiin qaar ka mid ah ayaa fuliya. siday ku fuliyaanna waxaa waa inay xiriir la yeeshaan marka hore hooyada guriga, iyagoo isaga dhigaya inay ka khibrad roon yihiin ama ayaan soo joogeen oo hooyo soo dhaqantay ay tahay, ayay xiriir la yeelataa hooyada guriga oo ku cusub guurka. kadibna waxay halkaa ka raadisaa daldaloolooyin ama farqi ay is leedahay waad ka dulmin kartaa gabadha ah, macnaha waxbaad uga sheegi kartaa. halkaas dulmigu ka bilowdaa. siaan marka arrintaa u fahmno, iyadana waxaan soo qaadanaynaa sheeko 87kii 87 ka dhacday xaafadda Wardhigley oo ninkii goobjoogga iga sheekeeyey. waxay ahayd qisadaasu laba arday baa isguursatay dugsiga markay dhammeeyeen. waxay ku fakereen inay jaamacaddii wada geli karin maadaama ay jacayl ka dhexeeyey, wiilkuna jaamacadda aado, gabadhuna ay gurigii joogto oo wiilku waxbarashada dhammaysto. saasay ku heshiiyeen waana arooseen, xaafadday degeen. xabiiba ayaa la dhahaa gabadha, wiilkana mukhtaar baa la dhahaa. dad isjecel oo wanaagsan oo isu qalbi furan oo jacayl weyn ka dhexeeyu ahaa. xabiiba markuu imaanayo nin kale mukhtaar jaamacadda soo dhammaysto oo ka yimaado, albaabkii ku sugu jirta guriga gudihiisa iska dhaaf, qadada iyo hawsheeda iska diya, banaanka albaabkiisa istaag jirta. markuu soo muuqdo halkaas soo dhaweynta ka soo bilaaban jirta, guriga soo gelin jirta. arrintii markiiba waxaa fahmay oo markiiba arrintii la qabsaday 3 hooyooyin ahaa oo xaafadda ku noolaa oo la kala oran jiray Barni, Caasha iyo Xafida. Barna, Caasha iyo Xafida waxay ahaayeen hooyooyin xaafadda degan laakiin professional ama khabiir ku ah sida dadka loo kala tuuro isqaba. waxay fahmeen gabadha inay ninkaas aad u jeceshahay, ninkaasuna uu gabadha u roon yahay, u wanaagsan yahay. deeta waxay goosteen inay gabadhaas barnaamijkaas ka dejiyaan oo si kale arrinteeda u bedelaan. waa soo booqdeen, maalintii horeysa waa u yimaadeen. waxaa laga sheekeeyey guurarkii hore iyo dhaqankii hore iyo gabdhihii hore say ahaayeen, xishoodkoodii wax. markii dambe lagu kankoono waxaa la yidhi mid baa hasho waxay tidhi weligay ma arag gabar bannaanka inta soo istaagtay ninkeeda bannaanka soo socda sugaysa soo dhaweynaysa, weligay ma arag bay tiri. tii kale ahaa dhexda ka qabsto waxay tidhi intaa noolaa gabdhaha maanta joog waxay samaynahayaan wax la arkay wax la maqlay midna maaha. tii saddexaad baa marka soo gasho waxay tidhi gabadhii toos inta ula hashay eedo yaa ku baray adiga horta saadaba nimanka bannaanka in lagu hortago, waa ku jecelahay iyo la adeeco, waxay ku yidhaahdaan la yeelo, loo dhega nugulaado, yaa ku baray. ninii naagti colna maaha nabadna maaha, yaa na isadkee oo wuxuu ku yidhahda hayeeli oo waxba ha weydiin oo wuxuu ku yidhahda adigu uga jawaab oo qalbiga wejigaa ha u furi. gabadhii waa lagu bilaabay sheekadii. aduu sheekadii markay gabadhii muddo ku socotay, gabadhii isbeddel ku dhacay. gabar yar bay ahayd, guurku markaasuu ka cusbaa, maskax ka weyn oo dee soo shaqaysaa la saaray. waxa saaraya waa dhowr dumar oo waaweyn oo hooyooyin ah oo soo maaragtay waqtigooda soo dhammaystay, khibrad u leh meelaha dumarka laga galo. say qojoqojeyn hadda meel u gelayeen gabadhii waxaa lagu diray ninkii. markii dambe waxay gaarsiiyeen in la yidhaahdo guriga waxaad u fadhidaa waa khalad, ninkan booyaaso ma tihid, jaamacaddaada waa ina aaddaa, soo dugsi sare baad dhamaysan, ha jaamacaddaada aad. maxaa ninkan booyaaso ma u taha, maxaa asagana jaamacadda geeya adna gurigu geeya. mukhtaar oo aan ninkii gabadha xaaska qabay xabiibo runtii aad u maaragtay nin fiiro dheer u ahaa, isbedelada guriga ka dhacaya oo hadba meel istaagaya tallaabo ula socday. maalintaa dambe oo guriga imaanayo oo ay gabadha u sheegtay inay rabto jaamacadda dib inay ugu noqoto, gurigana aysan sii joogeyn, ayaa waa ku bariyey. wixii hore dhan waa uu iska qarsanayay. habeenkaas ma u seexan, wuxuu ka fakerayay meesha barnaamijkan ka yimid iyo cidda wadda inuu ogaado. sida caadiga ah subaxiiba macsalaameeyo inuu jaamacaddii aadaya isaga dhigay. guri derisoo nin saaxiib ay isbarteen oo iskaabula oo guri aan ka fogeyn ayuu intixaan kala soo wareegay, soo galay. wuxuuna goostay inuu ogaado maadaama asagoo gurigan keligiis degan yahay, dhowr qolna uu yahay oo dhexda isaga furan, inuu ogaado cidda ay la xiriirto xaaskiisu.
wax yar muusan fadhiyin saacad ka yar markii 3 maamo waaweyn oo gurguuranaya ay gurigii soo galeen halkaasuu kala socdaa gabadhu waa soo dhaweysay maamooyinkii gambaree u dhigtay cabitaan bay u shubtay halkii baa lagu sheekaystay wuxuu sheeda kala socdaa hadba eegaba la socdaba wuu aqoonsaday maamooyinkii si fiican baa arrintooda u daraaseeyey mar dambe oo isaga waqtiyadii duhurada ay ku dhaweydahay yaa guriga laga soo baxay maalintaas waqtigu guriga tegi jiru tegey gabadhii oo sakacsan oo sideedii ah uu fahmay sheekadu meesha ka socoto ayuu arkay ma weydiin kalamana hadlin oo ma oran guriga dumarkii ka baxay iyo dumarkii joogo maxay ahay midna ma oran laakiin wuxuu raadiyey maadaama waddanku sharci ka jiray hab uu ula tacaali karo kiiskan guriga ka jira wuxuu goostay inuu cajalad ka duubo islaamahaas habeenkii guriga baa la iska seexday waagu markuu beriyo waa tegay hadda awow waa iska soo baxay marka nin baxay buu inta iska dhigay markuu qol ka soo baxay ayuu haddana guriga dhexda soo furay inta dhexda ka soo leexday albaabka jeelka intuu gaarin ayuu dhinaca kale guriga ka soo galay haddana xayiba ku sheenkeedii iska gasho guriga banaanka ka gurigii inta ku noqday ayuu armaajadii dheereyd inta galay isku xiray nus saac kadib baa islaamii guriga soo galay oo soo fariisteen oo meeshii shalay ay fadhiyeen la fariisiyey oo sheekadii meesha laga bilaabo wuu soo baxay Mukhtaar raadigiisu baa cajaladu soo diyaarsaday gashaday daaqada u saaray halkaasuu warkii maamooyinkii iyo xaaskiisa dhex marayay ayuu ka duubtay markii wax walba ay ku hadli kareen oo reer lagu kala geyn kara ay ku hadleen oo gabadhii ay u sheegtay inay arrintii ay kula taliyeen ay wado oo wixii oo dhan uu duubtay cajaladiisa dhamaystay inta kala baxay buu haddana meeshiisi ku noqday intii ay haweenka sii dhaweynaysay xabiiba dumarkiina qolkiibu ka soo baxay haddana wuxuu iska dhigay nin dibadda ka yimid oo xabiiba markay inta soo noqoto habrihii guriga ku soo noqoto albaabkii inta iska furay haddana soo gagarac oo nin dibadda ka yimid iska dhiga waxba ma weydiin wuxuu ka fakerayay maadaama cajaladii helay waqti ma lumin isla galabtiiba wuxuu tegay saldhiggii booliiska Wardhigli wuxuu u sheegay barnaamij xeerka qoyska leeyahay jira in gurigiisii ay islaaman duminayaan 3 islaamad gurigiisa tagaan xaaskiisa ku diraan maalin walba dhibaato guriga ay ka dhex jirto caddayn la imaam markii la yiraan cajaladii buu dhiibay waa la dhageystay waxa ka maqnayn wixii ay ku hadlayeen dhan baa ku jira isla galabtii waxa la amray in la 3 islaamad bal soo xiro shabaqla inta la diray ya islaam walba gurigeeda iyadoo fadhi laga soo waa hooyo ayeeya waa laga soo waday mid walba waa la soo xiray mid meel baa lagu xiray waa laga soo daba gurmada waxa war maxaa duqooshinka loo xiray duqooshinka dambi bay galeen dambi baa loo haystaa dadkii soo raacay waxa la iska taga dawladda haysata dambi baa loo haystaa hadday habeenkii meesha ku xirnay waagu markuu bari dama baarihiistii waa la weydiiyey waxa la kiiskaas la idinku haystaa inaad guriga tagteen inaad ku dirteen inaad reerka kala geyseen oo aad qoys dhisan duminaysaan baa la idinku haystaa sharciguna ma ogola dawladnimaduna ma ogola xeerka Soomaaliduna ma ogola waa la haystaa maxkamad baa la saaray way inkareen ma qabneede maxkamadda isla subaxdii loo gudbiyay degmada waxaa loo shiday cajaladii markay dhageysteen oo codkoodii iyo codkii gabadha iyo kulliga ka dhageysteen yaa tii weyneyd waxay tiri xafida yaa naga duubay cajaladan horta anaga codka meesha ku jira waa anaga tir waa run taas horta qarsoodi male way qirata laakiin waxaan rabaa inaan ogaado qaaligii yaa naga duubay cajaladan oo hadda anaga naga duubay qaalig wuxuu ku yiri waxa idinka duubtay gabadha warka u sheegaysan baa idinka duubtay ma gabadha naga duubtay waa run bay tir kiiska anaga sameeynay dambigana waa galay waxaan rabnaa in la cafiyo mar dambana loo noqon maayo qaalig wuxuu weydiiyey barnaamijkan hadda adinka kulay waa sida ka muuqato shaqadan si fiican u fahamsan baa tihiin waxaan rabnaa waa la sikin deynaya laakiin waxaan rabnaa qirashada inta ka badisaan imsa sana wadeen imsa qoys baa dumisay kiiskiina dhan waa inay cadaysaan bali islaami waxay sheegeen
kiiskan ilaa dhowr iyo 10 sano inay ku jireen ilaa 21 qoysna ay dumiyeen oo ay isku direen waa laga qoray arrintan markay soo baxday qaaligii wuxuu aad iyo aad uga naxay maamooyinkan dhibaatadii ku jiraan iyo idaaday joogaan iyo mushkiladda ay ku dhex jiraan qoysaska Soomaalida ku hayaan waxaa lagu xukumiyay xukunkooda uu noqday in islaamii xaafadii laga raro oo midba xaafad la dejiyo la yiraahdo xataa isku xaafad ma deegi kartaa oo gurigii iyagu ay lahaayeen laga raro oo guryahoodina la kireeyo la dhaho guryo kale kireysta xaafadda ma wada ganaanaysa midba meel la dejiyo waxaa kale oo lagu xukumiyay in la dabagali doono oo la daba socon doono dhaqdhaqaaqooda maadaama ay mufsado yihiin oo dhulka Ilaahay ay fasaad ka dhex wadaan oo ay qoysaskooda duminayaan xukunka markuu dhacay kadib Mukhtaar wuxuu u soo noqday gurigiisii Xabiibu u yimid Xabiibu wuxuu kala hadlay arrintii habrihii inay xiran yihiin laguna xukumay xaafadda in laga raro dhibaatadii gurigan wax ka dhexdeena ayada tahay cajaladiina wuu u shiday ila dhageyso yiri bal cajalada Xabiibu waa ku bari waxay la yaabtay warkii habraha oo duuban ma badina wuxuu yiri adigana ma ku geeyaa saldhiga oo dambiga aad gashay ma kugu qaadnaa mise guriga siisa ku soo celinaysa Xabiibu waxay doortay in guriga siisa ku soo celiso waxay raali gelin ka bixisay in lagu diray in dhibaatada habruhu abuureen waxa dhamay ka marqaati furta maalinta wixii ka dambeeyay reer Mukhtaar ilaa markii ninka sheekada uu sheegayo oo 2 sano ka hor ahayd waa wada noolaayeen reerkaas waa dhismay dadkoodii waa dad sii dhalay qoys balaaran bay noqdeen waxaan filayaa hadda laftirkeeda inkastoo dee magacyada u bedelay in ay wada nool yihiin ninka sheekada ii sheegayna nin qaraabo la ah oo xaqiiqiyay labadiiba hadda inay nool yihiin ayuu oo jecel inaan fahmnay dulmiyada qaarkood aad iyo aadna u rajaynaan guryahanaga ka ilaalin doono sidii aan u haysan lahayn oo dulmiga uusan ugu burburin lahayn oo qoys bilo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh